بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتي قالقة ميك صدفة دون مدافع عام كلا شوكتان سودا وهذا يوتيوب كنا قد عملنا فرحانة يوتيوب channel قفوا يصير تبين سنة وقفتي فرحة هيد بلس دانو عصبتي إنه لايك كرن إنه شير كرن كومنت كرن للوداد لما أنا صحابتي فاميلي كاجي أنت قوة هالرسنة هالكاجبا وشير كرن مقال كان مقال ذا كله سوق إنه channel كان هذه ما سنتينا تواضع شيء درمانتا مقصد دفاعاً كلا joogtaan intiina hadda ku sugan ama inta hadhow daawan doonto ama in haddadaas inta imika toos ula socota mawduuca maanta ka hadli doono waaba u jeedeen waa sawirka meesha saaran waa labadii boqortooyo waa labadii mucaashaqiin waa labadii familka ahaa aad iyo aad ka quruxda badan waa labadii youtuber waana labadii fanaan waa labo barnaamijku waa barnaamijkeeni waxaanu ku falanqeyn doonaa labada fanaan labada mucaashaq iyo labada youtuber oo muddadan aad iyo aad ka u faraha badneed wiigan ilaa wiigan gudihiisa sheekadooda ay haysatay baraha bulshada gaar ahaan dhinaca youtube-ka iyo dhinaca facebook-ka iyo dhinaca instagram-ka walow ilaa hadda lahaynin wax cadeym ah ama wax xogtooda oo rasmiga ah hase yeeshee ilal wareedyo ama ilal xoogwadyo aan ka helayno dhinacaas iyo booramo ay ku sugnaayeen inta xaalkooda dagaal ama xaaladooda ay aad iyo aad ka u kacsaneyd rasmi rays iyo waa farxaan yare hadda cid kale maaha waa rasmi rays iyo farxaan yare waa laba dad oo aad iyo aad u qiimo badnaa oo jacaylkooda iyo muxiibadooda iyo kalgacalkooda ayna kula wadaagayay dhinacooda barta ay ku leeyihiin youtube-ka iyo dhinaca instagram-ka halkaasi noogu soo taban jireen baraankiyo iyo waxyaabo kale aad iyo aad run ahaantii bulshada ay u qiirgelin jirtay ama u xiisan jireen ama maaragtay loo daawan jiray mar walba hase yeeshee waxa dhacday inuu dagaal dhex maray dagaalkaasna walow anagu aanan xog rasmi u hayn oonana dad family ah ama dad maaragtay mucaashaqiin ah oo maaragtay hal guri ku wada nool oskay kaya dhow oo dhileedhi inay naagtay colo maaha nabadna maaha hase yeeshee waxaa loo sheegayaa in ay dhinaca hargeysa ka tageen una yara kicitimeen dhinaca iyo boorama oo kasoo jeeday farxaan yare waa hadda se xog wareed nagu soo gaarayaan weliba wax rasmiya aan weli lahayn hase yeeshee waxa aan barta social mediaha aanu ka aragnay ama aanu markaan dad badan ama youtubero badan ama dad badan xog maaragtay aan weydiinay aniga ahaan weli farx ahaan ay ii sheegeen in ay rasmi rays uur lahayd hase yeeshee farxaan iyo rasmi rays waxay isku dagaaleen aan la garanayn hase yeeshee la sheegayo in uurkii rasmi rays uu kasoo dhacay waa tahay haddaba xaaladda rasmi rays siday tahay iyo waxa kalifay farxaan oo run ahaanti wiil aad iyo aad u degan ahaa kuna aragnay marka baraankiya ku sameynayso inuu aad iyo aad jeclaa aad iyo aadna uu isku dejin jiray dadka hore u xanaaq ama hore u kacana aanu run ahaanti ahaan jirin waa tahay iyagaa iskeen baray social media dhexdeeda isku keen bareen rasmi rays dabeecadaheeda waan aragnay farxaan yarena waynu aragnay haddaba run ahaantii waa wax lala yaabo waxa isku dagaaleen baraha bulshadana waxaa la dhex wareegayaa ama maaragtay aan marka anugu wade fiiriyey ama arkay walow aan in badan aan ka meereysanay inaan dad qoys ah ka hadlo ama aan maaragtay muuqaaladooda wuxuu iyo dhibaatadooda maaragtay social media keeno hase yeeshee way ku fursan weeday maadaama aan aragnay commentiyo badan akhri ayaabaan laba commentiyo aad iyo aad maaragtay iisoo jiitay aan ku arkay labada commentiyo dadka soo qaatayna waxaad iisoo dhigi doonaa isla bartan hadda commentiga koobaad waa commentiga saan odhanaya waa kan commentigu waxaa u maleynayaa inuu qofka yahay qof dumarsay yacni noqotay ashkuud wax saasa ku qornaa qoraal kale run ahaantii waad aragteen qoraalkana waa aad maaragtay uga bogatay ma filaya waa qoraalka koobaad commentiga koobaad aynu ku xaqiiqsanay inuu dagaalkani run yahay ama waxa rasmi rays ku dhacay uu run yahay qoraalka labaad ee commentiga labaad la wadaagay isaguna waa kan hadda waad ujeedaan xamdo 143 qalbi miyaa waxaas waad ujeedaan waxay soo qortay haddaba miyaan la odhan karin dagaalkani waa wax jira waana wax runa iyagaana social media aan keenin ama dadkii xoogaalka ahaa ayaan keenin yes taas ayaan oran karnaa taas ayaa farxaantaydan maaragtay aan oran karo ruuxaantii waa wax
dagaal run ah ama waa wax ka dhex dhacay labada qoys inkastoo la yidhi danina naagtii colla maaha nabadna maaha hase yeeshee bal wixii xogeeda kasoo kordha iyo waxyaabaha dambaba dee kulli waan u jeedi doonaa ama waan arki doonaa maxaa yeelay yacni mar hadday yihiin dad youtuberina kow hore noloshooda iyaga dadka la soo wadaagay iyaga inala soo wadaagay dhibaato markay ka dhacdana hadday iyaga qariyaan way qarsoomaysaa hadduu mid kamida nala soo wadaagana way nala soo wadaagmaysaa hase yeeshee waxaa noo xaqiijinaya ama aynu aragnay instagramka barta ay ku lahayd rasmi reis way ka saartay gabi ahaanba sawiradii muuqaaladii aada iyo aada quruxa badnaa romantiga iyo jacaylkii muxabadii kalgacalka uu ku dhehnaa iyada iyo saygeeda Farxaan Yare hadda walow aanan waliba odhan karin waa saygeeda in ay isqabaan isfure aanan ogeyn kommentiyada loo soo qorayo rasmi reis ma ka tagtid maxaa boor masas loogu yeelay haddaba anyway intaa kadib waxaa xoog wareediyay haddana lagu soo gaaray in ay rasmi reis gabi ahaanba jamhuuriyadda Somaliland oo ninkeeda uu keenay ay ka kici timi doonto una kici doonto halkii ay markii hore ka timi oo ahayd dalka Kenya caasimadda Nairobi haddaba rasmi reis marka ay Nairobi ku noqoto goorma ayay ku noqon doontaa waa su'aal isweydiiyo marka ay ku noqoto ma sheegi doontaa iyadii rasmi reis wax iyadoo soo qoray hadalnimo kuma jiro iyadoo xaajigeeda Farxaan Yare waxa ka dhex dhacay ama sababaha ay isku dagaaleen maadaama uu imaaday in uu ilmo soo dhaco ama Farxaan uu garaaco dilo rasmi reis ama meelaha ka tuuro ama yacni horta wax kale ku dhaco walow anu aynan xog gul rasmi aynan ogeyn ma dhihi karnaa rasmi reis way la soo wadaagi doontaa social media mise ma dhihi karnaa Farxaan ayaa isaguna sidoo kale la soo wadaagi doona walow Farxaan bari YouTube aanu ku lahayn ba filaya tuu leeyahay aanu ogeyn barta YouTube aanu bar ku lahayn hase yeeshee baraha kale uu isticmaalaa sida bartiisa Instagram ama Facebook miyuu kula soo wadaagi doonaa talow isagii xajiisa rasmi reis waxa ka dhacay mise waxay noqon doontaa xog qarsoon oo waxa doonta labadooda sir iyagii waliba fahamilkooda hase ahaatee dad badan oo lala xiriiray xog wareeriyo la helay familkan waa istagaalay rasmi reisna uurkii waa uu kasoo dhacay ama uu kasoo dhintay runtii uur ay aad ugu wada faraxsanaayeen buu ahaa talow hadda wax isweydiin mudan waa maxay mushkiladda keentay inay Farxaan iyo rasmi reis isku dhacaan uurkoodina uu maaragtay dagaalka dhexdiisa uu wax ku noqdo ama ilmahoodii markaa caloosha lagu siday run ahaantii waxaan la yaabnay run ahaantii wax jahwareer iyo wareer aad fara badan ugu riday waana xoog wareedyo dad badan la soo wadaagayaan haddaba haddana helo bal xoog wareedyo kale ama aad idinku heshaan kommentiyada labada commenti aad iyo aad maaragtay umruga iyo qiiro badnaayeen qafaal hawa kula ooyo kula qirooda haddaba bal mashaali doonaan hadday soo hadlaan si maxay sheegi doonaan bal wararkaayo warar kale hadaad maaragtay ogtaan ama ogtiin ama xoog wareedyo aad ka rasmi ka haysaan waad nala soo xiriiri kartaa waad nala soo wadaagi kartaa commenti caafimaad qaba noogu soo qori kartaa ilaahayna waxaan ka baryayaa rabbi raxmaankii in uu isku soo celiyo labadan lamaane nin naagtii colla maaha nabadna maaha wax kasta ha dhacaan ilkaal iska daadiya indhaal iska rida haddana way sii wada joogaan waliba waa sheekadu waxay maraysaa waa nin iyo naagtii oo waliba jacayl iyo muxubiye kalgacal uu u dheeraa oo ahayn dad la isku daray ama dad la isi siiyey iyagu dad doqooga isku soo doortay ay ahaayeen haddaba ma odhan karna social media lamaanayaasha waxa uu ka hayaa caqabad aad iyo aad u weyn ha uu ka hayaa laano waxayna aragnay lamaanayaal badan oo isqabi hase yeeshee social media dadtooda isku dagaal ama social media dadkii ma ilbaa ku dhacday dadkii maal habaaray I don't know wallahi waxa shay kara maaha haddaba dadka familiyada ah waxa oran lahaa social media wali ku guda jiray wax dhibaato ah kala kulmin ma idinka dhibaatada iska ilaaliya bal commentiga nagu loo wadaaga mise maxay tahay dadkan kale ayaa calafkooda dhamaaday oo waxaan calaf ayaa u noqday وسؤال بدل ورنا هنت هذه السويديو تضبطن بانيجا أقدوين وفاميليا أو سوشيال ميديا استياء أما يوتيوب برا أما هذا أنا من انستغراميش هذه أقدوان هاي سؤال كرو آدي كده حقو حيرنا هنت يا ودي لها إذا كان عادي سوقت بالله مرة والبا آدي ما هتنتي سوشيال ميديا أنا
waa wax maaragtay aynu ku faraxno ama aynu habi ku dareeno aad iyo aad berigi hore soo isticmaal jira hadda soo isticmaala ay u kala duwan yihiin oo imika in aad iyo aad run ahaantii ugu badanay haddaba hase yeeshee waxaan leenahay inta maaragtay istagaashay ee social media ku jiray ama aynu ku faraxsanayn fanaaniin ha odhanin youtuber ha odhanin waa wax run ahaantii kulligeenba naga wadwaayaabiyo oo aynu ku aragno maaragtay inay mar kastaba istagaalaan ama ay kala tagaan ama burbur qoys ka dhasho social media dhexdiisa bulshadana lala soo wadaago haddana oo social media dhex keeno waxaynu arkaynaa rashka boy xabsa waxaynu arkaynaa ku horeeyay mursal muuse iyo khadra cabdisalimo hadda waxa tan oo waxa ku xiriya maxay hay'ad farxaan iyo rasmreys iyagana waxa sidoo kale social media la wareegaya inkastaan arrinkaas aan aaminsanay inay been tahay leecato iyo sumaya in iyaguna maaragtay isku dhac uu ku yimid dhexdooda haddaba bal inta muuqaalkan iyo muuqaalo kale fara badan aan kaga tagayaan waana farxaana inta muuqaal mid ku kulmi doono share garay dhamaan ehelkaaga saxabta familkaaga iyo dhammaan inta kugu hareeraysan waxaan ku leeyahay noo like garay noo share garay noo comment garay aad iyo aad u mahadsan tahay wixii rasmi xog ah hayso noo soo gudbin kartaa waana farxaana qofka maanta idin la socodsiinay barnaamijka waxaa idin kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan